بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديدا فصل كصدحات waxaa idin leeyahay soonqaad wanaagsan Ramadaan Kariim insha Allah arday waxa halkan uga sii socon doona casharkeennii casharadeenii aan ku guda jirnay ee dugsiga kaas oo inoo socday cutubka labaad ee ku dhex jirnay cutubka labaad arday wuxuu ka hadlayay sheekooyin insha Allah markaa waxaan ka sii bilaabi doonaa ama ka sii qaadi doonaa halkii uu casharku inoogu joogay oo ahaa casharka sagaalaad ee galayna oo casharka sideedaad soo dhamaynay kaas oo casharka sideedaad oo ku saabsanaa bilaha miilaadiga iyo hijriga oo bilaha miilaadiga bilaha hijriga la isbarbar dhigayo kuwana sida kuwana inta yihiin iyo kuwana inta yihiin la isbarbar dhigayo marka maadadu waa maadadii Soomaaliga fasalkuna waa fasalkii saddexaad casharkan qaadan doonaa wuxuu ka hadlayaa bisha Ramadaan insha Allah oo casharka sagaalaad buugaada wuxuu kaga yaalaa bogga cashar ku yaala waa 750 boggaaga daabacan ee aad haysato ardayo halkaas kala socon doontaa intaynan casharkeena hadaba guda gelin ardayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye casharka hadii aad dhageysato wax macna ah ma sameynayso laakiin waxa ugu wanaagsan waxa weeye intaad qalinkaaga boggaaga istul qabato waa inaad qortaa casharkii hilaadiisi iyo ciwaankiisi iyo fartaada qurxisay waa inaad qortaa ardayo markaad dhageysato laakiin macnaheedu sameyn mayso hadii aad waan dhageysataa casharka waan dhigtay waan dhageysataa tiraahdo wax macna sameyn mayso marka waxaan kula dardaarmay ardayo inta markaad dhageysataa casharka ha iska dhigano ha iska laabin qor buugaada dhiganaha gacanta la soo bax qalinkaaga soo qaado qor waxaad ku qoraysaa waa qalin pencil weeyaan maaha qalin biro imkaba han ka soconaa casharkeena gala markaas casharkeena wuxuu ka hadlayaa bisha Ramadaan ee aan ku guda jirno oo sidoo kale la yiraahdo Soomaalida tirada soon ama soonqaad carabi ahaan way bilaabana casharkeena carabi ahaan bisha soon waxa la yiraahdaa Ramadaan soon waa Soomaali oo waxa ula baxay qoliyana Soomaaliga soon la baxay ama soonqaad baa la yiraahdaa Ramadaan waa bilaha hijriyada ee carabiga bilaha hijriyaduna halka soo bilaabmeen oo garanaa bilaha miilaadigu halka soo bilaabmeenna wana garanaa casharkii ka horeeyay ayaan ku qaadanay ardayo bisha Ramadaan waxay kamid tahay 12 bilood ee ku jira sanadka hijriyada ee islaamka bishan ay ku guda jirnay Ramadaan waxay kamid tahay 12 bilood ee ku jira hijriyada islaamka hijriyadana waxa tirsadaa islaamka miilaadigana waxa tirsadaa qoliyaha kale ee islaamka inaga laftirkeena duwan tirsanaa miilaadi baan tirsanaa oo islaam baan nahay laakiin wayna qaadsiino waxayna luusiyana ma hilmaamsiinayno wadadeena raacnay oo inaga iska raacnay qoliyahaas dacwadaas ka hadlowday wadadeedii garalabaynahay insha Allah marka waxa wanaagsan in bilaha hijriga aynu raacno sideedaba inagu haday Soomaali nahay waxa leeno wanaajiyo leeno qurxiyo waynu iska raacnaa marka miilaadiga leeno qurxiyay miilaadiga iska raacnay teeni ayna sameeysanayna way ka tagnay bilaheeni Soomaalida kuwii islaamka ee diinteena subhanahu sallallahu alayhi wasallam nabi maxamedna lagu soo dejina waynu ka tagnay ayna casharkeena ku sii socono bishan waa bil faa'iidooyin badan leh adduun iyo aakhiraba bisha Ramadaan ku guda jirnaa faa'iidooyin fara badan bay leedahay halkan ku soo la qaadan mayno laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr faa'iido ay leedahay oo ku jira aan ku soo qaadan doonaa kuwa ugu muhiimsan ee qaarkood kamid yihiin ayna insha Allah soo qaadan doonaa sababtuna waxay tahay waa bisha waa bisha Qur'aanka Kariimka Allah ina abuuray soo dejiya Allah subhanahu wa ta'ala waa bisha Qur'aanka Kariimka ee soo dejiya ama kitaabkeena Qur'aanka Kariimka oo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ku soo dejiyay Qur'aanku wuxuu soo degay bil Ramadaan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay hadii aynu tusaale soo qaadano Qur'aankeena Kariimka suuratuna anzal oo ku jirta jis ambe ama jiska suuradaha ugu yar la ku jirta wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr ilaahay wuxuu noo tilmaamay inuu Qur'aanka soo dejiyay laylatul qadr wuxuu yahayna xaga dambe ku sii qaadan doonaa laba waa bisha oo alle ummadda islaamka ah faray inay soomaan sababtoo ah soonku waa tiirka afraad ee tiirarka islaamka sidoo kale ardayay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu na amray inaynu soono bishan sagaalaad ee Soomaaliduna tira soonqaada hijrigana la yiraahdo Ramadaan bishani waxay kamid tahay shanta tiir islaam ayay ku jirtaa
Allah subhanahu wa ta'ala diinteenu ay ku taagan tahay way ka mid tahay tiir hadaad maqasho tusaale ahaan gurigiinu wuxuu leeyahay maxaa dhahdaa gidaaru leeyahay hadii uu gidaaradaasi jirin xagga sare way iska soo dumi lahayd Soomaa ardayow markaas darteed afarta gidaar qolka aad ku jirto qolka waxa haya jiingada sare iyo maxaa dhahdaa waxa ka sareeya waxa ka haya afarta gidaar ba ka haya soo kale diinteena islaamku waxa leedahay tiirar iyo rukniyo ay ku taagan tahay bay leedahay marka waxa kamid ahaa tiirka koobaad shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah inaad ilaahay qirto nebi maxamed uu yahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam uu yahay waxa ku siixtay shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah iqaamatu salaah ku siixtay wa sawm ramadan wa hajjul bayt allah alharam liman istada'a ilayhi sabila way mid baan ka booday kulay sakadi baan ka booday laakiin saas ka afraad buu noqonaya tiirka afraad ee islaamka ayuu noqonaya marka bishan waa bil aad inoogu qaalay ardayow agteena way waxa kamid ah faa'iidooyinka ay bishan leedahay waa bisha uu ku jiro habeenka ka khayr badan kun bilood dib ugu yar noqo suuradii naazilay imka akhriyay laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر habeenkaas waa habeen ku jira 10ka dambe waxa la inoo sheegay inuu habeenkaas yahay habeen amniye ilaa iyo inta caayada soo baxayso hatta madlac al-fajr Allah subhanahu wa ta'ala ayuu noo sheegay maadaama umrigeenu arday iska yar yahay oo uu tusaalaha nabigeenu Maxamed sallallahu alayhi wasallam umrigeeda lagu dhigo 60 iyo ilaa 70 ilaa wixii kasi hooseeyo inta ugu badan way dhici kartaa in 110 qof gaaro way dhici kartaa laakiin se inta ugu badan celcelisaha marka la isticmaalo ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa 60 jir ilaa 65 jir inahaas ku dhimanta inta ugu badan waa nabi maxamed sallallahu alayhi salaatu wasalaam waaye sil maadaama umrigeenu yar yahay laynoo kaabo waxyaabo ilaahay noo kaabay waxa kamid ah hal habeen oo u dhigma 1000 bilood ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ayuu inoogu deeqay bal 1000 bilood inta sanadood ay noqonayaan baa laga rabaa ardayow inaad soo xisaabiso kadibna aad buugaada warcelinta insha Allah aad ku qori doonto waayahay afar faa'iidooyinka afraad ee bishan leedahay waa bisha ilaahay xidhay albaabada naarta furayna kuwa jannada malaa'ig mahad ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa bishan wuxuu naga xidhay albaabadii naarta wuxuu inoo furay albaabadii jannada wixii naga silsileeyay Allah subhanahu wa ta'ala shayaadiintii waaweynada dambiyada waaweyn nagu ridayay bishan waa bil marka aad iyo aad muhiim ah waa bil inooga baahan in aynu weyneyno waa bil inooga baahan in waxyaabaha la faray aynu qabano waa bil Allah subhanahu wa ta'ala maadaama quraanka soo dejiyay aad u baahan quraanka in aad loo akhriyo ugu yaraan inaad bishan dhamaysato 7 jeer 3 jeer 4 jeer adu inta awoodaada inaad dhamayso quraanka kariimka maadaama qowlka kariimkii qowlkii Allah subhanahu wa ta'ala uu yahay inaad dhamayso arday isku day casharkeenu ka leeyahay bisha Ramadaan casharku intaas ku yahay waxaan u gudbi doonaa hadda warcelintii casharkan uu lahaa insha Allah way ka warceli weydiimahan kuna qor dhiganahaaga gacanta ardayow ka warceli weydiimahan hoosta ku yaala kuna qor dhiganahaaga gacanta way kow bisha bilaaha hijriyada ah tiradoodu waa imisa bilaaha hijriyada soo dhigatay tiradoodu waa imisa way laba maxaa ay tahay muhiimadda habeenka laylatul qadrigu waniga cashar ku dhex sharaxnay sheego aadna sharaxo dib u sharax laba saddex bisheebay muslimiintu soomaan bisha waxaad sheegaysaa tiradeeda sheegaysaa bisha 10aad bisha 12aad bisha 15aad saasaad bil u qoraysaa bil baad qoraysaa laakiin ma qoraysid erayo Soomaaliya ma qoraysid tusaale ahaan seko oo kale ma qoraysid laakiin bil magaceed baad sheegaysaa waayahay afar bisheeba ugu dambaysa bilaha hijriyada ardayow casharkaaga markaad akhrido ee aad qorto waxaad u noqonaysaa casharkan casharkii ka horeeyay waxaad eegaysaa bishan bilaha hijriyada bisha ugu dambaysa ayaad magaceega ayaad sheegaysaa insha Allah in casharkeena inahaas inuu gabagaboobay ardayay halkaas ayay noogu dhamaaday inahaas aynu ku soo afmeeri doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan u gudbi doonaa arday oo israacin doona maadaama casharkan cashar yar gaaban yahay
casharka ku xiga ee tobnaad ama 2.10 oo ka hadlaya cigaal shidaad waa ninkii fariidka ha weeyaan cigaal shidaad bal cigaal shidaad wuxuu yahay ayna casharkan ku xigana ayna insha Allah arday ku ogaan doonaa kulley waxaad maqashay sheekooyin badan oo cigaal shidaad leeyahay ama ka daawo TV ka daawo ama cid ka dhageyso ka warramayso meel ama waalidkaaga ama ayeeydaayo kala ama ka maqal macallimiintaada maadooyinka kala ku dhiga ama gal hore ama gal dambe ku dambe ha noqdee kulley meel baad ka maqashay cigaal shidaad sheekooyin leeyahay ama cigaal shidaad sheekooyin uu leeyahay way tusaale yar haddii aan soo qaataan sheekooyinkiisa waxa kamid ah sheekada la yiraahdo naaxalo dhintay waxa dhacday cigaal shidaad ba waxa duulay beeshuu ka soo jeeday beel kale ku duushay deetana waxa la war cigaal waan duulenahay kaalena raac deetana aduu nin waxa la ogaaday inuu dagaal galgal uu baqayo deetana markii uu sameeyay talkii ay duuleen dadkii kale ku beeshii kale ku duuleen ayaa waxa dhacday talkii baa la soo laayay talkii baa laga soo adkaaday deetana waxa la ogaaday inuu ninkii cigaal shidaad la oran jiray una soo raacay inuu kaga hadhay gurigii uu kaga hadhay deetana waxa sameeyeen qolihii dagaalamayay ee soo jabiyay cigaal talkii ayaa waxay soo doonteen cigaal shidaad islaama kaasa ka hadhay kaana soo dila deetana waxa dhacday cigaal shidaad wuxuu arkay fardaha siigadoodii boorkay soo kicinayeen farduhu markay qoobka soo helaan boor badan bay kiciyaan deetana markuu arkay inay fardii soo yaacayaan ama ay soo siiga soo kicinayaan ayuu gartay in talkii la jabiyay isagana lagu soo socdo deetana gabadhiisii buu tagay gabadhiisii buu ku yiri ama afadiisii magaceegan halkan ku arki doonaa insha Allah ayaa wuxuu ku yiri waxaad ugu duubtaa cawskan ama hararkan gurigeena Soomaaliga bahalka lagu sameeyo weeyaan cawska laga sameeyo deetana markii uu ku duubay wuxuu ka sii laabay gabadha fariinta uu sheeglayo hadii lagu dhaho goormo dhintay bari hore dhintay waxa ku oran lahaa ayuu sii laabay deetana markay colkii soo dhawaayeen bay cawska ku duubtay ama hararkii deetana halkii uu qoortay la soo jeedsaday gabadhiina waxaad ku bararootaa buu yiri cigaal shidaad oo ceelirtii jabay cigaal shidaad oo ceelirtii jabay iyadoo gabadhii intii ku celcelinaysa ayaa waxa yimday deetana colkii waa yimday colkii oo abaanduulihii iyo askartii wala socdaan ba soo galay markaas ku dhaana maxaa ku helay markaas ku tiri waxa cigaal shidaad baa ayaa dhintay deetana goormo dhintay ma ku dhahay ilaa uu sheegin gabadhii soo goorta soo dhintay kuma oranay intuu qoorta la soo baxay ku dhahay naasha loo dhintay ku dhahay way kulli waa nin aan ku dhaxarki doona casharka wuxuu yahay sheekada yar gaaban oo aad u ballaaran markeeda kale laakiin aan imka soo yar gaagabiyay ayaan ardayay ayaan ku furfurana casharkeena way cigaal shidaad waxa uu ahaa nin nabadda jecel ninkan wuxuu ahaa nin nabadda jecel oo oday beelada ayuu ahaa iska jecel nabadoon dagaalka iyo waxyaabahaas ka helin ba ayaa ahaa laga yaabaa galaaskeena inay ardayna nabadda jecel tahay ardaydana ay foodada iyo waxyaabahaas jeceshay laakiin waxa ugu wanaagsan qofka nabadda jecel baa ugu wanaagsan laakiin waxa lagu tilmaami jiray in caan ku ahaa xagga fuleynimada ninkani nabaddu jeclaa dadkuna waxay u haysteen inuu fulay lagu tilmaami jiray sidaas darteed sheekooyinkiisu waxa ay u badan yihiin kuwa ka hadlaya fuleynimada inta badan hadda sheekooyinka ciyaal shidaad akhrido ama aad dhageysato waxay ku saabsan yihiin inuu nin fula yahay oo waxyaabaha fuleynimada ayaa ninkan lagu tiriyaa dhankiisa way casharkeena ku sii socon doonaa sawirkani ana soo galiyay laakiin adiga waxa kugu yaala cigaal shidaad oo nayla daba cararaya naylihiina ay hor yaacayaan oo casharkeena uu ku saabsan yahay laakiin markii aan casharka diyaarinayay ayaan sawirka hore arkay deetana sawirkan laptopkayga ku jiray ayaan soo galiyay ardayay marka ha u qaadanina hadii sawirka la bedelayna casharkeena isla bedelay laakiin ninkan baa waa cigaal shidaad oo adhigiisa raacay imka riyu eegaya markii kale wuxuu eegayay naylu eegaya casharkeena wuxuu ku saabsan isagoo nayla eegaya way waxa la yiri cigaal shidaad oo tukanaya ayaa naylo xaqiisa u soo yaaceen ninkan cigaal shidaad oo iska tukanaya ayaa xaqiisa naylo u soo yaaceen nayluhu waxa weeyaan ariga laba soo kala baxaa waxa la yiraahdaa ida iyo riyo marka nayluhu waa kuwa laxuhu dhalaan baa la yiraahdaa laxuhu ayaa la nayla marka isku jiraan riyuhu waxay dhalaan iyo iduhu waxay dhalaan waxa la isku dhahdaa baraar ama maqal baa la yiraahdaa way ninkan isagoo iska tukanaya nayluhu eegayay ay xaqiisa soo yaaceen okay way cigaal baa booday oo naylihii daba cararay ama ka daba baxay
xaggii ay nayluhu sorry raallahada naylihii naylo xaggiisa u soo yaaceen cigaal baa booday oo salaadii ka baxay weeyaan cigaal baa booday oo salaadii ka baxay waxa uu cararay dhinacii ay nayluhu u yaaceen ninkani maadaama uu maadayste ahaa sidoo kale fulayna sheekooyinkiisa lagu tilmaamayo isagoo salaad ku jira ayaa naylihii xaggiisa soo yaaceen deetana way dhaafeen deetana xaggii ay nayluhu u yaacayeen ayuu cararay cigaal iyo naylihii oo istaba ordaya ayaa ku xerooday gurigii reer cigaal gurigiisii cigaal bay naylihii toos u tageen u aadeen waaye cambaro watan gabadhiisa magaciisa ama afadiisa magaceedii cambaro oo ahayd islaantii cigaal ayaa dibadda u soo booday aqalkeedii oo weydiisay waar cigaal maxaa ku eryanaya ilaga ninka weyn naylaha daba carray way yaabtayo waxay weydiisay cigaalow maxaa ku eryanaya cigaal shidaadow maxaa ku eryanaya cigaal inta uu dib eegay ayaa uu ku warceliyay waxa ay nayluhu ka cararayaan ayaan ka cararayaa maxaad ila yaaban tahay ama yaabaysaa ninkani gabadhiisii dib ayuu hadalkeedii gocdayo wuxuu ku leeyahay waxaan nayluhu ka yaacayaan ayaan aniguna ka ordayaaye maxaabad ila yaaban tahay buu ku leeyahay ii weydiinaysaa su-aashaas cigaal shidaad wuxuu ahaa nin nabad jecel cashirkiin hadday soo gudo marno nabadu aad iyo aad jecel laakiin dadku waxay moodi jireen inuu nin fulayo xagga fulinimada ayaa inta badan lagu tiirin jiray inahaas waxay nagu eeg cashirkeennii insha Allah waxaynu gudageli doonaa weydiimaha cashirka uu leeyahay oo ka gadisan cashirkan ka horeeyay kuwii hore ka warcelay bay ahaayeen kuwana waa ku qor run been ama ma aqaan su'aalahan taad garanaysan waxaad ku qoraysaa run ta saxda waxaad ku qoraysaa run ta qaldanna waxaad ku qoraysaa been taanad garanayna cashirkaaga aan ku jirin laakiin se la taxalluqdana ma aqaan baad ku qoraysaa waayahay weydiinta koobaad nayluhu waxa ay ka baqeen waraabe naylihii waxa ay ka baqdeen waraabe waa weydiinta koobaad way weydiinta labaad cigaal waxa uu karinayay cunto way weydiinta saddexaad cigaal waxa uu ka daba orday naylihii way ama run been ma aqaan intaasaad ku qoraysaa 5 cigaal waa uu baqday way 6 cigaal waxa soo weeraray waraabe 7 cigaal iyo naylihii waxa ay galeen gurigii gurigii baa lagu leedahay yaqaana 8 magaca xaaska cigaal waxa la oran jiray cibaado 9 cigaal xaaskiisu waxa ay karinaysay cunto 10 cigaal xoog ayaa uu orday adaa garanaya inuu xoog u orday inuu cunto karinayay inuu nayl carray waxaas oo dhan markaad akhrido cashirkaaga si fiican u fahmi doontaa way cashirkeena qaybta koobaad waa run iyo beenta ama ma aqaan baa lagu qorayaa way qaybta labaadna wuxuu leeyahay ka codso qoyskiina in ay ku sheegaan sheeko kale oo ku saabsan cigaal dabeed uga sheekee asxaabtaada ardayo maadaama aad hayni halkan aan soo baneeyay dash laymanka ayaad buuggaada ku soo qoraysaa sheekadii hooyo ama aaba ama adeer ama edo ama ayeeye ama walaal ay kaaga sheekeeyay ayaad ku qoraysaa halkan aan baneeyay ardayo waxaanu gudageli doonaa cashirkan warcelimihiisa qaybta saddexaad 3 qaybood buu leeyahay waa qayb run iyo beena qaybtan sheekada waalidku kaga sheekeynaya aad adiguna sheekadii dib u qorayso qaybtii saddexaadna waxay leedahay isku macne way ereyo isku macna leedahay kuwan way had iyo jeer waxa jira ereyo isku macne ah isku beeg ereyadan iyo macnahooda kuna qor dhiganahaaga gacanta mar walba arday waxa lagu raacinayaa lagu xasuusinaya inaad qorto ama ha noqoto cashar ama weydiimo ama warcelin wax danta ha noqoto inaad qorto casharkii way halkii erey ku qoran tahay yaalkay macnihiisa ku qoran tahay erey baroor wixii la macnaha xagan ku qoran yahay bahal wixii la macnaha xagan ku qoran yahay way xirooday diday fuli way ereyada intaas macnaha cigaal galay naxay naylo waraabe marka ardayo waxaad u sameynaysaa buugaada saa imka ay kaga muuqata halkan oo kale ugu qoraysaa
deetana waxaad samaynaysaa lambarada u samaynaysaa ama ba ta ja xa saas u samaynaysaa deetana waxaad daba dhigaysaa halkay macna ku qoranta intaad line laba soo jeexdo ee insha Allah daba dhigi doontaa inahaas waxay noogu eeg cashirkeennii arday